iyadoo lagu guda jiro maalmaha xurriyadda ayaa magaalada Buuhoodle lagu qabtay xaflad lagu shaacinayo kaab loogu magac daray Allah u naxariistay halyeeyadii Soomaaliyeed ee Saada Cali Warsame. Kaabkan ayaa loo dhigay 8 kooxood oo heerka koowaad. Kaabkan ayaa ay maalgeliyeen Xasan Cabdiyare iyo Cabdirasaaq Maxamuud Cabdirasaaq SSC oo ka mid ah qurba joogta gobolka Cayn. Munaasabaddan ayaa ay ka soo qayb galeen qaybaha kala duwan ee bulshada, waxaana ugu horeyntii halkan ka hadlay gudoomiyaha isboortiga gobolka Cayn Jaamac Maxamed Xaashi. lagu xusayo Saada Cali Warsame magaceeda lagu xusayo ay ku xusayaan labada nin ee dhalinyarada ah ee midna uu yahay Xasan Cabdiyare midna uu yahay Cabdirasaaq Maxamuud oo ku magac dheer Master Xidig ama SSC ku magac dheer iyadoo koobkan uu ka madax banaayahay wax la siyaasad run ahaantii arrimaha bulshada dhalinyarada isboortiga ay aad uga qayb qaadan doonto ayay run ahaantii ku xusaynaa dhalinyarada run ahaantii aad iyo aad ugu mahadnaqaynaa dhalinyarada dad isku mid ah tihiin dad walaalaha baa tihiin dadkii isboortiga gobolka Cayn maanta metelay waa idinka dadka la xusay waa idinka sida hambalyada laynagu hayo ee wax laynii tarayo ee laynii sharfayo in aad ina wax u sharaftaan akhlaaqda ku dadaashaan aqoonta ku dadaashaan ee aad isqadarisaan arrimaha bulshada iyo nabadgelyada aad ka shaqaysaan ayaa maanta run ahaantii koobkan laynagu qabtay. koobkan haddii sida uu yahay waajibaadkiisa aynu gudano waxaa inoogu xiga koob ka qiimo badan koobkan hadda laynoo qabtay run ahaantii baa inoogu xiga hadda laba nin oo dhalinyarada isxilqaamay labada nin magacooda ka dhawaajiyey run ahaantii markan ka dambaysa ee la xusi doono ama xilligiisa la qaban doono way ka soo badan doonaan insha Allah wax macquul ah laynii dhigi doonaa ama wax muctarif ah laynii dhigi doonaa